السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمع من ليلى وقيبتي صدحات هدي dhibaato kusoo food yeelato sidee uga badbaadi kartaa quraanka la saaxiib ta koowaad quraanka la saaxiib quraanka la saaxiib quraanka la saaxiib talabaad gudahaaga gal sidee gudahaaga ku galaysaa waxaad suubinaysaa wax la yiraahdo suufiyiinta wadaadada suufiyiinta waxay yiraahdaan muraaqaba ama contemplation English haddaa ku hadasho waxay ka taagan tahay inaad adiga fikirkaaga ama gudahaaga sida dareenkaaga inaad ku food aad ma aragtay si aad iyo aad ah aad ma aragtay u saartid culayska sidaa u fahmi lahayd dareenkaaga inta badan dadka ma fahamsana dareenkeenna waxaa la socdo xikmad oo dhanka ilaahayga ah especially haddaad qur-aanka aad la saaxiibto dareenkaagana wuxuu noqonayaa saafi ama pure buu noqonayaa qalbigaagoo saafi noqonaya because siduu ilaahay qur-aanka noogu sheegay quluubta waa waxa ugu muhiimsan mar walbuu ilaahay qur-aanka ka hadlaayo bini aadamku wuxuu ka hadlaa af'ida iyo quluubta af'idada iyo quluubta fu'aadka iyo qalbiga ma aragtay waa waxa ugu muhiimsan bini aadanka ruuxiisa ay ku saabsan tahay qofka noloshiisa oo dhan waxaa bedelaya qalbigiisa qofka hadduu madoobaado noloshiisa way madoobaataa macsiyadiisa way badataa ilaahay inuu ka fogaado way u fududaataa waxaa la fududaata qaladaadka badan uu suubinayo qofka hadduu purification suubiyo uu issaafiyo uu isnadiifiyo iska dhaqo xumaanta iyo madowga qalbiga madowga ah waxaa u fududaanayso qofka inuu cibaadaysto waxaa u fududaanayso qofka inuu ilaahay mar walba ka fikiro waxaa mar walba uu qofka ka baqayaa takalaan raba inaan idiin sheego waxay tahay saaxiibayaal baqdida uu ilaahay qur-aanka ku sheegay taqwada ma aha baqdida sida anaga u naqaano soomaalida because aniga waagaan yaraa waxaan xasuustaa malcaamada ama dugsiga markii nala geeyo mar walba bank idiima sheega ciyaal maamaan ahayn la kookooliye waagaan yareen because door jeer inta nala geeyey malcaamad ama dugsi xaafadeena kaas balbalaara xamar waxaan xasuustaa hooyo waxay nooga soo kaxayn jirtay kaliya because walaalkayga iga weyn ayaa macalinka mar walba soo dili jiray aniga waxaan ahaa fariidad waan qur-aanka marnama ima dhaafi jirin macalinka aad uu mar walba ii jeclaa qur-aanka ilaahay aan kugu dhaartay wallaahi alcadiim qur-aanka mar walba waan ka soo bixi jiray wax waliba waxa suuradda laysoo diro maalinta anoo soo barin xitaa waan kasii warwari jiray every day right after the ma aragtay marka malcaamadda ama dugsiga ka soo baxno waan u fadhiisan jiray waan sii barin xataa waxaan xoog saari jiray dhanka dugsiga ama dhanka malcaamadda walaalahii kuwa kalena aad bay iskoolka ugu dadaali jireen horta aniga baan idiima sheegaayo iskuulka smart baan ku ahaa student baan ahaa especially jaamacadda markaan gaaray wax walba dean listan ku jiray waxaan ahaa good student laakiin waagaan yaraa good student maan ahayn average baan iska ahaa because aniga waxaan ahaa dadkan ma aragtay independent thinkerska aniga waan iskama maqnaa dadka ma aragtay mystiga ah dadkan ma aragto ilaahay siiye waxaa aniga aan leeyahay oo kale waa dad ma aragtay ka duwan xataa childhoodkeeda caruurnimadaada waa ka duwan tahay caruuraha kale markay mashquul ku yihiin inay ciyaaraan ee waxyaabo suubiyaan aniga waxaan mashquul ku ahaan jiray inaan la sheekaysto dhirta inaan la sheekaysto shimbiraha for example waxay familigeyga aan lahaan jirnay azendo ama beer ku taalo janaale mid tuna shalambood ku taalo dhanka hooyana ayay yaaliin waxay lahaayeen beerooyin ku yaalo balcad marka samarka marka la gaaro beeraha markaan aadno quruxda badan meeshaasaan aadi jiray waxaan la sheekaysan jiray dhirtaas marka aniga waxaan ahaa always waxaan ahaa xataa waaga ilmanimadeydii waan ka duwanaa waxaan oo dhan kuugu sheega waxay tahay qur-aanka weligay waan dareensanaa inuu ka duwan yahay waxyaabaha kaleo iskoolka aan kusoo dhigan jirnay for example hooyo mutacalimad weeye alxamdulilah ayadoo medical school ku jirtay guursatay waxay uga baxday medical schoolkii because caruur badan bay dhashay laakiin hooyo waa dhakhtarad camal way dhammeyn rabtay medical schoolkii marka aad dhanka tacliinta xoog noogu saartay hadda walaalahay kulligood waa PhDs iyo medical doctors iyo dentistry waxyaabo badan bay subiyeen caruurteena gedigood waana badannahay
kulligood ka ugu yar hal shahaadada wuxuu haystaa jaamacadda bachelorska kulligood waa highly educated highly achievers because waa hooyo ilaahay khayr ha siiye laakiin waxaasoo dhan waxaan u sheegay faan igama aha waxay iga tahay aniga waagaan yaraa maan jecleen iskuulka waa laygu qasbi jiray hooyo sometimes xitaa waa laygu garaaci jiray inkastoo ciyaal maama aan ahayn laakiin qur-aanka waan jeclaa hooyo waxaas igu jeclayd because aniga waxaan aad u jeclaa qur-aanka and by the way markii dugsi walbana laga soo bixiyo waan ooyin jiray because aniga waan jeclaa macalinkuu i jeclaa kabiirkuu i jeclaa and waan ku fiicnaa wax waliba waan ku fiicnaa qur-aanka laakiin mar waliba walaalkay dartiisaa noolaga soo bixin jiray because asaa la soo garan jiray anaga hooyana mee jeclen carruurta in la garaaco waana garanaysaa waxaasoo dhan waxaanu dhahay malcaamadda ama dugsiga ayaa inta badan soomaalida kaga fogaadaan diinta caruurta yaan la dilin caruurta yaan la garaacin qur-aanka siday ku jeclaadaan cabsi yar oo iska fiican tahay ilmaha in la discipline gareeyo laakiin dilidan ma aragtay ziyaadada ah dilid soomaalida waxay taqaanaa dilid sida ma aragtay cadow camal in caruurta loo dilo waxaas waxyaabo badan ay keentaa waxay keentaa dad waxaa jiro ilaahay dadka isku mid kama wada dhigin aniga waxaan ogahay nafteyda haddii saas lay dili lahaa waa nici lahaa qur-aanka waa nici lahaa diinta laakiin nasiib wanaag qur-aanka maan nicin because aniga qofkii la dili jiray maan ahayn marka taqwadaan usoo noqonaya waxaasoo dhan waxaan u sheegay taqwada inaan ka hadlo taqwada uu ilaahay qur-aanka ku sheegay ma aha taqwadan cabsida aad qofka ka baqaysid taqwadan waxaa waaye markuu qalbigaaga pure noqdo ma aragtay wax walba waad ka fiirsanaysaa waxaa ka fikiraysaa alla ilaahay sidee ku raaligeliyaa waxaan haddaan sameeyo ilaahay raali ma iga yahay mise iga ma aha wax waliba waxaa ka hormarsiinaysaa ilaahay ridwaankiisa ilaahay si inuu kaa raali noqdo ma aha bini aadanka inaad qancisid wax waliba waxaa isku dayaysaa ilaahay marka waa part of the iimaan waxay ka mid tahay waa juz muhim min juzaska ka mid ah waa qeyb weyn ay ka taagan tahay taqwada dhanka iimaanka ilaahay taqwaduu ku badiyaa qur-aanka intuu iimaanka ku sheegay iimaanka wuu ku jirtaa qur-aanka laakiin haddaan qaldanahay soo saxa please laakiin I think inay taqwada kaga badan tahay suurat albaqara keliya kulligeed taqway ka hadlaysaa aayado badanaa ilaahay wattaqu llaha muttaqiin wax suuradda aayado badan oo taqwada ka hadlaysaa jirto waxaan idiin leeyahay taqwadan waxay ku xiran tahay qofka spiritkiisa qofka qalbigiisa marka qaybta labaad waxaan ka soo hadlay jaceylka gudahaaga ku jira soo ma aha jaceylka gudahaaga waxuu ku weynaadaa qur-aanka markaad la saaxiibtid taqwada kugu badanayso taqwada markay kugu siyaadane waxaad kuu siyaadayso yaqiinkii inaad wixii certainty inaad wixii ma aragtay si absolute aad u dareensan tahay aniga suufiyad baan ahay diinta islaamka dhanka suufigan qaatay because waa dhanka jaceylka ku aadisan waa dhanka devotionka ku aadisan waa dhanka isku xiridda ilaahay ee kaa tahay lilaahi kaama aha inaad u barato qur-aanka sida textbook camal sida dadkan salafiyiinta aniga salafiga ma caaynayo laakiin ayagaa inta badan suufiga caayo waxay nagu sheegeen inaan suubino shirki waana been it's further from the truth suufiga rasmiga oo ahli sunna waljamaaca la yiraahdaa waxba ilaahay uma shariik yeelaan nabiga digrigiisa wuxuu kuu siyaadiyaa markaad digriga nabiga badisid wuxuu kuu siyaadiyaa spiritkaaga ruuxaaniyadaada aad pure noqota wuxuu kuu siyaadisaa energy badan oo protection kugu suubiya salaamu calaykum qaybta afraad dhagayso salaamu calaykum